markaad internetka soo gasho waxaa jiro application qaar ama social media ha ahaadaan ama nooc kale ha ahaadaanba kuwaas oo runtii aad dhibsanayso fariimaha kaaga imaanaya xitaa suurtageli kara in mobilkaaga culeys said ah uu noqdo ama jahwareer uu ku dhaco. tani waxay dhacdaa markaad internetka maalmo badan ka maqnaato. haddaba waxaan rabaa inaan videoan kugu tusiyo farsamo yar oo fudud taas oo kuu sahlaysa in applicationka aad doonto fariimaha kaaga imaanaya inaad iska xakamayso. markaad u baahato oo kaliya ayaad ku dhufanaysaa, fariimaha way soo dhacayaan, ma la celi doono fariimaha, laakiin fariimaha inay kaa dhaxwaalaan ama ay waali kugu furaan mobilkaaga gudihiisa ayaa xakamay doontaa. hab yar oo fudud oo kuu sahlaysa ayaan rabaa videoan inaan kugu tusiyo. ogowna farsamadu uma baahna inaad application soo degsato ama Play Store aan kuu diro. waa wax yar oo fudud taasoo u baahan oo kaliya inaad click siiso. 2 daqiiqo ay soo socota ayaan rabaa qaab faahfaahsan inaan kugu tusiyo. u diyaar garow farsamada oo dhammaystiran. isuna wanaagsan saaxiibayaal, waan filayaa inaad u diyaarsan tahay farsamada. bal ila daawo iyadoo faahfaahsan oo yara fudud. waayag saaxiibayaal, si fudud waxaad tegaysaa settings. marka aad tagto settings waxaad ka dooranaysaa qaybta ay ku qoran tahay notifications. mobilada Samsung way ku kala duwan yihiin, laakiin mar walba magaca notification ayaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay. qaybtan hoose ay ku qoran tahay recent send, qaybteeda hoose see all taabo. waxaa kusoo bixi doona dhammaan applicationada ku jira mobilkaaga. hadba kaa rabta ayaad xiri kartaa notificationada kaaga imaanayo. tusaale haddii aan rabo YouTube kale inaan iska xiro, calaamadan geeska ayaan taabanayaa oo waan soo xirayaa. ogow fariimuhu lama celi doono oo way soo dhici doonaan, laakiin inay soo dhiceen kama arki doontid mobilkaaga, culeys lama dhici doono. tusaale haddii aad u baahantay Facebook oo kale fariimaha kaaga imaanaya inaad iska xirto, kaliya waa xiraysaa buttonkan. fariimuhu waxaa ka heli doontaa oo kaliya qaybta notificationska Facebook marka aad gasho, laakiin qaybtan kore ee mobilka uu leeyahay kuma soo kori doonaan. sidaas la mid ahna application walba aad doonaysa halkan ayaa ka xiraysaa. haddii aad rabto inaad furtane isla sidaan ayaa u furaysaa adigoo calaamadan on dhahaya. hadda waan filayaa in ay la fahanteen haddii uu application ku dhigo fariimihiisa qaabka iskaga xiri karto iyo qaabka iskaga furi karto. xiritaanka waa muhiim inaad fahantee. haddii hadda tusaale aan taabto YouTube oo aan xiro, fariimaha YouTube-ka mobilkayga ma qasi doonaan. kaliya YouTube-ka fariimaha kasoo dhici doona waxaan arki doonaa marka aan YouTube ku dhufto. inta aan banaanka ka joogo YouTube igama soo dhici doonaan wax fariin ah. haddii uu ku dhibo application ku jira mobilkaaga, isla sidaas ayaa u xallin kartaa fariimihiisa. waan filayaa hadda inaad wax badan ka fahantay. isuna wanaagsan saaxiibayaal, waan filayaa inaad adiga daawanaya ka heshay. fadlan ha ilaawina la wadaagta asxaabtaada sida aan kula soo wadaagay. sababtoo ah isgaarsiinta fiidiyoyaasha farsamooyinka waxay naga saacidaysaa in cilmigeena ama aqoonteeda ama farsamooyinkeena ay kordhaanba. haddaba la wadaag asxaabtaada adigoo taabanaya calaamada share. haddii aad ka heshay videoganne like garay si aan u ogaano inaad ka heshay videogan, ama qaybta hoose ee faalada ugu yeer saaxiibka ciladaani haysato una baahan inuu xal u helo. waad ku mahadsan daawashada videogan. waxay noo ballan farsamadan iyo farsamo ka cajiibsan oo ka muhiimsan. gool wacan.